farxiya waxay ku suntaneed marwo aad u degan aad u akhlaaq badan afkeeda iyo aadinkeeda laga nabadgalay reerkeeda raali gelisay saygeeda raali gelisay aniga aan raali ka ahaa 10 sanadood muddo ku dhow baan wada nooleen waxayna ii ahayd nolosha inta aan noolaa maalmihii marka guurka laga hadlo iyo in mataqaana aabba la ahaado waxay igu reebtay xasuus iyo nolol weligay Allah aanan iloobi doonin laakiin waxaan leeyahay ilaahay jannatul firdaws ilaahay ha kugu irsaaqo hadiiba say raali isagoo ka ah xaaskiisa haday dhimato hadiiba ay jannada ku galayso naar arki ma doontid waana ku duceyn doonaa waana maaragtaa weligeena qalbiyadeena baaqi ku sii ahaan doontaa waxaan ka codsanaa dhammaan Soomaali weyn inkastoo aysan ahayn qof dhib badan oo laga sheegtay inkastoo ahayd gabar la wada amaanay oo dadka oo dhan afkeeda iyo adinkeedaba ka nabad ahaadeen haddana waxaan idin ka codsanaa dhammaantiin qofkii farxiya wax u qabo inuu ilaahay dartiisu cafiyo maadaama ay naga hooseyso maanta oo duco oo kaliya nooga baahan tahay hadii maalin ibn aadan ay isgaareen ama maalin aniga ka hor iyo kadib ma arag ay jirto waxa idin ka codsanaa dhamaantiin inaad ii cafisaan iguna duceysaan waa ku mahadsantiin dhamaantiin sidaad ugu wada duceyseen maama ifraax oo halkaan imaaday waxaan leeyahay ma aqoonin aniga dadkii tacsida ku bartaa kamid ahaa oo ma aragtaa inay farxiyo sadaqadaas la baxday waxyaabaha ay ku wanaagsaneed waxa kamid ah xitaa sadaqooyinkeeda gaar aniga waxba kama warhayn marka maama ifraaxna insha Allah taala waxba ka mahalaabi doonaan farxiyo kadib ka horna ayada ku ilaalin jirtay intaas kadibna ma aragtaa hadii hadalkaan sii badiyo wax macna leh oo ku tooraya malahan waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin waa ay tusteen waxa aan agtiina ka ahay Soomaali Maxamedey abaal baa idin haya idinman iloobi doono maalmihiga xanuunka badan waa ay garab istaagteen waa ay garab gasheen وانا ku qancay qadarta ilaahay keeno qof islaamana ahay alxamdulillah shukr rabbil alamin wuxuu ilaahay keeno waa lagu xamdiyaa waa lagu shukriyaa isagaana nolosha saan u adag ee imtixaanka sidaan u adag marka uu namarsiinay xigmada uu kala jeedo isaga og ilaahay baana weyn waa mahadsantiin dhamaantiin